adigo fahmo marka Soomaaliland ka imaad no aniga naag abgaala ahay ما شاء abgaal الله iska dhal waliba which is why kursigaas adeerkay ka qaada doona aan isagana ku xukmi doona 60 sano oo xukun ah because of inta lacag ku qaadanaya foreign affairs iyo UN ka laga baahnaa masaakiinta iyo jidadka inuu ku dhiso jeebkiisu gelinaya ilmihiisu siinaya isaga laga bilaawaa then prime minister ga laga bilaawaa inta odayaal daaldaalan oo calooshooda iyo jeebabkooda buuxiyana waa la wada xirayaa dawladda Soomaaliya waxa laga digi doonaa dadka wiilasha yaryar iyo gabdhaha yaryar oo joogeen oonan soo qaxinin iyo naag haysato passport from outside of Somalia xukuumadda inay gasho waa baqalad xaq waxa u leh dadkii oo joogeen wadanka oo wax ku barteen oo dhisteen inay ayaga noo taliyaan naad dadkan oo soo ordeen 10 sano maqantii 30 sano maqantii dan kursiyaala gadanaysiin Soomaaliya absolutely not say wallahi oo dhan oo business ka furta Soomaaliya businesskooda waa la xiraa absolute waa la xiraa meesha laga baahnaa dawladda Soomaaliyeed inay dadka masaakiinta biyo siiso ee jidadka u sameeysa ee isbitaal siiso dadkan qurbiga ka imaanayaan isbitaalay furanayaan biyo cad ay furanayaan dan dadka shacabka masaakiinta waxa dhaysan 500 keen ninka maalinta ku shaqeynayo $5 8 hours waxa dhaysan 500 keen isbitaal hadaartid waa qalad imaaraadkana waa waseena Saudi Arabia waa waseena waxaa la shaqeynaa Chinese ka keenana waxa baranayna sida advance loo sameeyo technology gooda ka baranayna shacabka Soomaaliyeed waxa baranayna sida loo dagaalamo Turkiga waxa dheena marka qaadatiin lacagtiina lagu caawiseen kadib dhulkeena soo ma gali kartiin badeena waa xiranayna hawadeena waa xiranayna dhulkeena waa dhisanayna marka anaka hal guri wada galno ceebteena muujeedna hagaajino ayaa albaabaha u furayna dadka kale inay nala shaqeeyaan but until then no anaka ba kala daadsan waa dadka la shaqeynayna no sidee waxa soo shaqo u qaban karnaa hadaa tiri hal kala gogo fiiri Somaliland haday go'do inay dan igu jirtaa Somaliland inay go'do waliba Somaliland inay go'do ee hadana kursiga naag Somalilander ee isiiso inay danteeda igu jirtaa Puntland inay go'do gabar oo Puntlander ah ina kursiga la siiyo inay danteeda igu jirtaa because aniga horta Soomaaliya magaciisa dan waa bedelaa ama shacabka magacooda bedeli doona ama dalka magaciisa ayaa bedeli doona because dalka iyo shacabka Soomaaliyeed inay labadooda hal magac wadaagaan waa qalad because dad Soomaaliyeed ayaa waxa jiro oo laakiin sinjiidooda ahayn Soomaali so sug wadan cilmaaniya u soo fakatay adaa cilmaanina ma nacbanta baasaboorka inta dhigtid orod jilb iyo jamaame ka soo tuugso waa ku weydiiyaan ku dhahay su'aalo istibidnimana ay weydiinin ma garata su'aalaha qaabka daran lasma weydiin meesha waa la isku xiraa anyways ما علماني مية تها argagixisa ma tahay I don't know su'aalahaas dadka waxa weydiiyay dadka argagixisada ah no علماني مية تها دي لو yes or no ba ku furan ima furno waxa ii furan adiga argagixisa miyaa tahay maya su'aashaas dadka argagixisada ayaa dadka weydiiyay ما ويديان miyaad ii sheegaysa way weydiiyaan dadka argagixisada al-shabaab ka taageera dadka waxaas weydiiyo waxaa tiri Somaliland gabar baa kursiga ku fariisanaysa yes Puntland gabar baa ku fariisanaysa yes fikirkaasna waxa aaminsan cilmaaniyiinta okay fikirkaasna maxaa iga gal cilmaaniyiinta anigoo kale haday aqli u leeyihiin dan waa wax fiican waa soo dhaweynayna that's why aan ku weydiiyay cilmaani baa tahay علمانيgan wuxuu qabaa also ina jidka lagu xaaran anina waxa qabaa jidkana lagu xaaran does that mean cilmaanina ahay aniga wax kasto aad tahay I don't care like aniga hadda ku sheeg just because dad afkaar ay wadaagaan does not mean ina ani wax igu shaambadaynaysid okay dadka aqliga leh badankooda isku afkaar way